halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com subax wanaagsan dhegaystayaal Afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxa kamid ah qoraa u dhashay dalka Sacuudiga ayaa sheegay in masaajidyada ay dalkaasi ku bateen dadkana ay dib ku qabaan dalka Mareykanka wuxuu buuq ka taagan yahay hubka shacabka ay iibsadaan haddaba hubka la gato sharci ceenkee ah ayaa loo maraa qorigan waxaad ku haysan kartaa oo kaliya ganacsi aad leedahay ama oo kala soo qaado dukaan iyo wixii lamid ah iyo gurigaaga waxa uu isticmaali kartaa ahayn oo ahaa isdifaacid aan ahayn ma jirto gurigaaga haddii cid kugu soo dhacdo waa isku difaaci kartaa haddii ganacsigaaga cid kugu soo dhacdo waa isku difaaci kartaa maxaa laga filan karaa taliyaasha amniga ee dawladdu ay shalay magacawday Puntland oo laga arinsanayo abaaro ku soo foolle wiil Liibiya u tahriibay oo hadda Soomaaliya ku soo laabmay wuxuu ka warramayaa silaca iyo saxariirka uu dalkaasi kula kulmay afar jeer ayaa la gatay afarta jeer ayaa la gatay waxa lagu kala gatay lacag qiimaha iyo kala duwan baa lagu kala gatay mar laga bixiyay 5,500 laga bixiyay mar laga bixiyay taana 6,000 iyo taana 250 laga bixiyay iyo mar 4,000 dollar laga bixiyay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa barnaamijka waxaa soo saartay Bushra Nuur Darawal anigu waxaan ahay Cabdirasaaq Catoosh Ahmed Badar oo iga soo horjeedana warkii dunida hayno aqriyo